insha allahu tacaala waxaan u gudbi doonaa qaybtii labaad ee muxaadarada oo ah asaladii waqtigoo yar daraaddeed waa dedejin doonaa insha allahu tacaala wixii kaloo asilaha horeha loo soo gudbiyo haddii ilahay idmo sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay maxay diintu ku qabtaa lacagta xoolaha zakada ah in laga bixiyo inaan macnaha taan lacag sii bixiyo hadhowto aan ku qoro liiska zakada oo lacagtii zakada iga bixi lahayd aan lacagtii aan dadka ama sadaqa ha noqoto ama shaxaad ha noqoto waxay doonto ha noqotee lacagii aan sii bixinayay inaan inta qoro hadhowto zakadii u jiro maxay diintu qabto lacagtii bixin boqol sadaqada miya lacag waan sii bixiyay macnaha hadhowtana zakad waan qoray lacag zakadii markay gaartay baan u niyooday alxamdulilah zakada horta waxaa shardi u ayol xiba laba shay inuu sanad soo wareego iyo inay nisaab gaarto zakada nisaab waa cadad mucayan qiimo oo shareecada ay cayintay waa 85 garaam oo dahab ah dahabkana waa inuu yahay ciyaar 24 ciyaar ma qan wax lagu dhaho Soomaali carat miya carat 24 inuu yahay لأن كارتك 24 ذهبك وذهب خالص وحكلا دايما كلا كومجرو كاس أيا اللي يقول لي هاي معنا وحن كربا 65 جرام ذهب أو 24 كارت أما عيار عيار في عربي عيار سومالها وقادنا أيا لقى بحنا يعني مثلا هدو دار سلام كجوجو 65 هالك جرام ذهب كسو قبا إنه جوجو بقول كون تنزاني مثلا 65 كله فوق أميقا وسدد من يشان بقول سمان سدد من يشان بقول حوالة جارة يوحي كبدن على جربها زكاة والسنة كوسي وريجو إذا هذه الزكاة أسين بحنجتي العقد يراء تطور جتي مركز الزكاة لجارة كان بحنايا ما سعونا الشكاة وشك حرير أن سعونين سنة كمركز سو وريجو العقدنا نصاب كذا وسدد 5 جرام ذهب كبدن ونقضة قيمة هذا مركز صعب بحنايا سوي حراء وبحثت كمجرسد قف دين أكل هذا هنا وأنك سي جرايا مجرته دينتها كوي أنكس هسوع عليه كما جرست والله أعلم. جزاك الله خير جزاء شيخ سعيد كان يقول لي هاي الزكاة تاكو هبون القبح شو مودن كان جوجو سواء أدري كرا وطمك لسيد الصومالي وكذا. الحمد لله زكاة علماء وحي قبان ودن كأذيك حولاس إلهي كاسيين إن أكون بحسد إلا وحي تهي مساكين تكوا وريكسن إن أذيك أدقن عسد تاسع أصل كيسد فوق هذا الشيء لكن هدي ودن المسلمين كمده ودب إيجاجة كجرته معلول حن كجرته إن حاجة لوق هذا لقيه ضرورة درت هذا ويبنان تاي لكن أصل مش أجوكتد أكون بحساء يا أصلك والله أعلم. جزاك الله خير جزاء شيخ سعيد كان يقول لي هاي قفك إسقى أودين يقول لي هاي فترة مكبح حساب. نعم قفك أسدين يقول لي فترة مكبح حساب فترة دين شغلهم لها فترة وحكوا حرنت هاي inaad habeenkii ciidda imaanintii ciidda waxa cuntada haystid wixii ziyaada ayaa ka bixinaysaa soonka ay shaqo ku leedahay saan hore u sheegay wallahu aclam. جزاك الله خير جزاء شيخ سائل كان wuxuu leeyahay waxaan meel ka wada shaqeynaa ruux muslima qofkaasi mana tukado mana soomo caafimaadkiisuna waa taam maxay diintu ka qabtaa haddaan ku diro ninka booska ah si shaqada looga caydiyo. الحمد لله انت هرت بوسه كدر ان شغله سida looga ceeriyo horta adiga u naseexday waani xaqi ilaahi kulliye subhanahu wa ta'ala tus waani Allah ta'ala wuxuu dhahay wala tujadilu ahli kitab illa billati ahsan ahli kitab oo kristaan ay yahuudi kristaan marka la doodeysaan si wanaagsan oo la doodo oo dibcan inka walaalkaada waxa fiican in si dibcan wanaagsan oo haduu adiga qaadan waayna aragtid inuu hadalka yeelin qof asaga maqla u soo dir المهم نصاحدي إيوانادي قارسي حلاقة هذا شغالي بوس كودرت شغالي لقى عيري إنه وسيك دين سيفو هذا أنتو كل الجوغا في عن إنا وانا ست نحرست إلهي حقق وسنن إلهي وحوده فرعون مركو لهد موسى هارون عليهم السلام فقولا له قولا لينا قول جل عسان كودها لعله يتذكر أو يخشى حلاقة إنه حسوسته أما إنه إلهي كبقى سبحانه وتعالى نعم. جزاك الله خير جزاء شيخ سائل كان wuxuu leeyahay salaada ciid hadii ay iga tagto ama hurdo iga tagto dambi miyaa ku dhacayaa mase tukan karaa maalinta labaad. alxamdulilah hadii salaada ciid ay kaaga tagto adoo hurdo dee way kaa dhacaysaa dee qalad ma lihid nabiga calayhi salaam xadiis salaad alfardi markuu hadla wuxuu dhahay
من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها قفك صلاة كسحدة أما إلا مركو حسوسته مردود ككعو هدو كذا تنوى صلاة واجب وتنهر وشاقني فوق هذا قارأ يا قبا إن أو الدكان كرو قفك كليجيس وخلاف العلماء كتاجن قفك هذا كتبته إنه كليجيس لا بركة على الدكان كرو أيا قباس دمرك جرو أي الدكان كرا قالوا حي قبان مايا صلاة دي وكاتكتي وحلو ملو هدي كسعد كائهن دمي مليهد لكن خير بدنا أيا إسلافي سي ولما قال قبين الدكان أنا وحن قبا قولك النووي إن الدكتيد هدي كسعد كاغتجن إن الدكتيد أيا إلى في عن قول كاسين قبانيجا والله أعلم. جزاك الله خير جزاء الشيخ سائل كان يقول لي هي قبل الشقالة أقول إيجا شقيسوا مسلمة وبنانتا إن أكون بحي زكاة الفطر. الحمد لله وان كهذا لي قبل ناس هذه قصب هو ما هن واجب هو ما إن أكون بحي زكاة الفطر لكن وإحسان هذا كبح هذيك أيضا وإحسان يأد أسمى شيء واجب هو ما هن لكن وحشر دي أنا أشيك تتنا هذيك كبحسي هتكبحي نسيت نعم. جزاك الله خير جزاء الشيخ سائل كان يقول لي هي زكاة الفطر كما لقى بحين كراقف جوجا صوماليا أنا هو جوجا تنسانيا. الحمد لله وبنانتا وتان شيء هدي قفك أكبر حيث تنزانيا هدول جوكتيد وأنا أشيك تاني لهدد هدو والد كذا والد كه هذا أبغى قصب على كبر حساب وأنا أشيك تاني هيدا أنا كابحنايا أكوش سن رب مله أنا أنت لكن قصب بحاجة إن أسجى أوجسيسا إن تكبر حنسد وكلها وأقلها هذا كلها مو أقلي كمان بحين كرتت نعم. جزاك الله خير جزاء شيخ سائل كان يقول لي هاي صلاة الإحدى الصومالي من وجود حسن كراه صلاة السنة يا صلاة واجب كان لكن waxaan raacinayaa sheekh maxamed Allah xafadaka su'aashii hore qofka muhiimada waxay tahay zakaat al-fitr meesha asaga uu ku ciiday inuu ku bixiyo taas asalka ah waxaan fiican meesha inuu ku bixiyo meesha asaga uu joogo qofkaas inuu ku bixiyo ayaa fiican salaada lagu duceysan karaa af Soomaali طبعا وصلاة السنة ولا جدا فرضها توافق عربي إن لو جود عيستا ولما قالوا عليهن وحافي عن قفك مركو دعيسنا الصلاة جودها هذا خاصة مركو سجود وكسو جنيه هاي يقفك إلهي ودويا سبحانه وتعالى ني صحابي النبي وحكوده أي ويجيسو محاربتا محاد يجي باهنتاي نبي على السلام وحكوده هاي نيك صحابي وحكوده رضي الله عنه مرافقتك في الجنة وحارب الجنة أنا أديك درس كل نقطة مش أديك الجنة أنا كل دو ومنزلة عالية نبي عوده أعني على نفسك بكثرة السجود حيقول هذه يوكل مساء سجود بدي معناها صلاة السنة بدي سجود نقفك مركز جسيا إلهي ولو سبحانه وتعالى إنه دعيسته حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحكوده هي أما الركوع فعظموا فيه الرب والركوع ذا إلهي كوينية سبحان رب العظيم بحمده سبحان ذا الجبروت والعظمة والكبرياء وحكستوا عظم إلهي وينيت كسجن إلهي كوي جسو أما كده ركوعه أما السجود فأكثروا من الدعاء سجود وحبستان دعاء فقامنون أن يستجاب لكم وحد هبونتين إني لا أجيبه قفك هدو في عربي أودن سجود ونكون دعاء استربه ويحي وديه لا في عربي ما أوده أصل وحايا ضدك مسلمين في عربي إنه برتان سوما لذا عيب يقفك في عربي إنه برنين الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية وحلقه يقول هي من تكلم بغير العربية من غير ضرورة فيه شعبة من نفاق ابن تيمية وحوده قفك أف عربي أن لقد أهم كوهد له أسوى نب ضرورة أجيسن أيجرين وحاكوجتا نفاق على مدى نفاق متكمدة يكسون ومنافق يكوذا وكوذا ابن تيمية أضوها مرت هذا دقوا يل أسوق قشد أديك كيف حالك يا أم يا جدتي هويا سيتا في عربي أكون إيكتد أو حالة هي جود مورنينج جراند ماذا كشكاي جود مورنينج جراند ماذا ما بنانتها هنا رهيت ما سوى متقنا في عربي سوى في سومالي سوى متقنا حاول أحد ليس لقد قلات معنا وحاسمو جنيسة لقد إن أكتر إيكوين تهي سمان ولقد دي قرآن كهذين أكتر هذا قيمة كلهن هذا نوع استهي شيخ الإسلام وحوده قفك النفاق يا كجرا من تكلم بغير العربية من غير ضرورة فيه شعبة من النفاق عن كذا لقد عربي إن لبرتو ومهم سومالي الحكولين خطبة في صومالي مربنا في عربي مربنا ومقلينا وهذاك معك جديد ده مغلس ما قلتش
jajabi haddaa rabtid waa fahmaysaa af carabina ma baranayna carab wax nagama gelin anaga af carabi waxaan ugu baranayna waxay tahay qur'aanka akrinayno ilaahay wuxuu lehy subxana tacaala haddii qur'aanka markay akrinaya ay ku tadabbarin quluubtay ka qofulan yihiin afalaa tadabbaruuna qur'aan am calaa quluubin aqfaaluha so ilahay ma dhihin idan qofka qur'aanka aan macnihiisa garanaynin tadabburka ma helaya ya ma helaayo mana fahmaysid qur'aan carabiy gayra dii ciwaj waatu ilahi leh subxana tacaala muhim waxaa qofka luqada carabiga iyo nusuusta kusoo arortay ducada inuu ku duceeyo salaada haddii ku adkaato sheekh islaam ibn taymiya culama qaar waxay qabaan af soomaali uu ku duceysan karaa daruuradaas darteeda laakiin waxaa ugu fadli badan af carabi inuu ku duceysto waa salaadaha sunnada ama salaadaha fardiga lama ogolo ilaa af carabi adkaarta in lagu akhristo wallahu aclam jazaak allahu khayr jazaa sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay baabuurta ama gawaarida lagu shaqaysto zaka ma laga bixinayo baabuur zaka laguma laho waxaa lagu leeyahay lacagta uu shaqeeyo haddii lacagta uu shaqeeyo sanad kasoo wareegta ama kasoo wareegto kiwaangihii ama cadadkii 85 gram aan sheegnay gaarta waa lagu leeyahay lakin baabuur ahaan laguma laho zako jazaak allahu khayr jazaa sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay haddii lacag dayn aan laygu leeyahay aan haysto oo aan ku shaqeeyo qaarna aan wax ku gatay zakada ma ka bixinaya lacagtaas lacag dayn adiga ma lihid horta fiir maxaa leedahay xisaab horta lacagta wixii dadka kugu leeyahay markaa bixisid wixii hore adaa leedahay haddaad zaka gaarta ka bixi zako oo sanad soo wareego lakin lacag adi aa lahayn zaka inaad ka bixisid ma banaan adiga ma lihid baad nacam jazaak allahu khayr jazaa sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay qofkii xajku ku waajibay muxuu sameynayaa xajkii wuxuu noqday xujo waana la xirayaa ilaa 2 sano cudurka koronaha dartiisa waxaa moodaa qofkaasi inuu hadda ku cududaaranayo koronaha ka hor intii ka horreysay inuu xajiyey ahayd si aan hadda koronaha loogu cududaaro alxamdulilah siduu sheekha sheegay dee allah subxana taala wuxuu dhahay xajka markuu hadda wuxuu dhahay man istataaca ilayhi sabiila qofkii aadi kara wadadii u furantay inuu aado fuqahadan waxay ka hadleen qofkaas oo xaj ku socdo waagii horey dameero iyo orar ayaa la fuuli jiray haddii la dhaho tuuga ayaa joogtaa wadada ama dhacda ninkaas inuu xajkii ka dhacayo tan taas ay lama tahay wadadii ayaa xiran corona ayaa kaa xirtay dee xajkii waxaa tahay qof aan awoodin dembi kuma soo gaaro waa haddii 2 sano gudahooda aad noqotid qof xajka waajib ku ah ama markii horeba hadduu waajib ku ahaa cagajiidaysi dee ilahi u toobakan subxana wa tacaala markii hore ahayd inaad dadejisid ilaahina subxaana wa tacaala walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istaaca ilayhi sabiila aayadda ugu dambaysa ilahi wuxuu dhahay waman kafara culamadu waxay kasoo qaateen aayaddaas qofkii xajka isagoo waajibka tegin gaal ayuu yahay cumar khataab ayaa ku tafsiiriyay nacam jazaak allahu khayr jazaa sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay ma bannaan tahay inaan xaaskayga u dhaarto inaan naagkeen la guursanayo haddii aan la guursado se muxuu xukunkeedu yahay alxamdulilah culamada waxay isku raaceen qofka markuu xaaska guursanaya intuu guursanin ka hor intuu la nikaaxin ka hor haddee shardi uga dhigto aniga shardi waa ay guursanaysaa shardi waxay ahayd naag kale lama guursanaysid u ogolaado naag kale ma guursan karo nabi ala slam wuxuu dhahay almu'minuuna calaa shuruutihim mu'miniinta shardigoodii ayay micnaha fulinayaan shardigana ka baxday maan laakiin haddii ay ku dhihin markaa shardi koo ay ahayn laakiin markaa aroosta kadib ay ku dhahda naag hayla guursanin haya a dhahdid aa guursasa dhib ma leh shardi hore qabla zawaaj ma ahayn dhib ma leh dumarkan waxaa loo baahan yahay ragga haddii 2 3 4 guursadaan dee ilaaha baneeya ayaga maseer waa jiraa dee qof waxaa loo bahan yahay dumarka caloosha inay xerato shaydaankaas ka naarto markay maqasho ninkeeda ayaa naag la guursaday wayse ha qaato 2 rakac ha dukato ha dhahdo ilaahayow samir qalbigayga sii ma naqana maseerka waa wax dumarka ilaah ku abuuray laakiin inay baxdo timaha rifto hadda ka hor gabar waxaa lii sheegay ninkeeda waxaa la naag aroosan ina dad soo diray telefoon oo been ah ilmihii raashinka ku karinaysay baastadii badal ay ku shubi lahayd saliidii waxaa ku jirta gaas wallahi alcadiim markaas dad xaafad yimaaday ilmihii waa cuna raashinka hooya baastada gaasaa ka shiraya war saliidan ku shuba cuna maba urinayso iyada gaaskaas waa maseerkii ayaa ku kacay waxa fiican inay sabraan raggana waxaan dhihi lahaa dumarka fashion ha u guursanina inaad dad ku dhahayd labaan qabaa
saddex qaba adi halaa qabtaa fashion maahan waa awood hadda leedahay awoodda xagga jirka iyo awoodda xagga marashada masruufkan ka wadaa marasho iyo masruuf labadaba haddaa leedahay inaad guurstid wadan hadday ku geyso laakiin haddaad minyar guursid bahaweentii dhulka ha ku jiidin oo ha dulminin nabig alay slam xadis wuxuu ku dhahay qofkii laba xaas leh aan cadaalad falin yowma alqiyama wuxuu imaanaya asoo hal dhinac ka maqan walciyaadu billah naam سؤال حلية كم عدد المحرمات من النساء التي لا يجوز زواجها في القرآن؟ عدد المحرمات في النساء هي الأم التي ولدتك وأم الرضاعة والآن ما أذكر عدد لكن أختك خالتك عمتك نعم حرم عليكم أمهاتكم هذه الآية التي جمعت لكن المحرمات في الشريعة منها أبدية ومنها مؤقتة الأبدية هي أمك صار نقطة في الصومالي وأنبدله لينك سؤال شو حلا هاي dadka qofka ninka ragga dumarka ilaahay ka xaaraantay oo waa imisa hada ma xasuusti laakiin aayada suurta nisaa ay ku jirtaa ilaahay subhanahu wa ta'ala hurmat alaykum ummahatukum waxa laga xaaraantay hooyooyinkiina idin nuujiyay gabdhihiina walaalihiina eediyaashiina iyo wixii lamid ah quraanku sheegay gabadha qofka ninka guursada gabar ee ninka la u dhashay warabaayibukum allati fi hujurikum iyo xaasaska aabahada uu nikaxsaday iyo gabadha wiilkaada la gurgalay yani quraanku suuratu nisaa ilaahay ku sheegay laakiin shariicada waxay u kala saartay muharramaadka laba nooc waxay tahay muharrama abadiya hooyada way ka xaraan ay ka tahay inaad guursid ilaa yawm alqiyaama waa hooyada iyo walaashaada iyo habaryartaada iyo eedadaada iyo gabadhaa dhashay iyo gabdhaha dhalay adeerka u tahay iyo gabdhaha abtiga u tahay lax maahan abti hangool dheer ama hangool jiid somdan hangool jiid abti ina adeertaada ma ahan waa abti walaashaada ayaa dhashay adeeraa u tahay walaalkaada ayaa dhalay isku hooyo isku abatiin ama isku abatiin ayaan ka wada ama isku hooyaatiin calaa kulli xaal laakiin waxaa jira muxaramaat muaqata ah oo muddo ah maxay tahay tan muabadiya way gabadha adi aad qabtid caasha allah maalan caasho waxaa la dhalatay gabar faadimo la dhaho ama eedadeeda xaliimo la dhaho xaliimo iyo faadimo intaad xarigaada caasho ay ku jirto xaaraan bay kaa yihiin walaakin waa muddo gaaban intaad tan qabtid kuwan xaaraan eedadeeda xaaraan ay kaa tahay walaasheeda la dhalatan xaaraan ay kaa tahay waa inta iida qabtid haddaa iida furtid kuwaasay ku banaan yihiin waxaa la dhahaa almuxaramaat almuaqata muxaramaat oo wakti kooban leh abad ma ahan ilahina wuxuu dhahay waan tajmacuu bayna alأkhtayn inaad kulmisaan ilahay uu xaaraantay aayadda ku jirtaa suurat nisaa laba gabdhoo walaale inaad guur ku jimcsid waa la diiday nabiga xadiis wuxuu ku sal slam wa an tajmac bayna albinti wa camataha inaad kulmisid gabar iyo eedadeeda lax ah ama gabar iyo habarteeda lax waa xaaraan wallahu aclى wa aclam jazaak allahu khayr jazaa waxaan halkan ku hayaa su-aashii u dambeysay su-aasha u dambeysay waxay leedahay sheekhan alfaadil soomaalida daarsalaam joogta ee af soomaaliga ku hadla maxaad ugu tala gasheen haddaad culimo tihiin intaanu sheekhu ka jawaabin su-aashaas waxay leedahay haddaan sii faahfaahiyo culimmadiinu waad ka seexateen ummadda soomaaliyeed ee ku nool waddanka maxaad wax ugu qaban weydeen bay hawshaasi taabanaysaa anna waxaan intaa ku dari lahaa waa sax hawshaas waxbaa ka jira laakiin bal sheekhaan ku wareejinaya insha allahu tacala waxay ugu talagaleen culimmada isagoo ku hadlaya afka culimmada iyaga dadkana waxaan oran lahaa haddee maanta waxaa laydinkugu yeeray muxaadaro oo culimmadii joogteen dadkiina hadday soo gelayaan marka idinku laftigiinu maxaa ku tala gasheen oo culimmadu hadday idin timaado ad ugu tala gasheen intaas baan ku dari lahaa alxamdulilah waxaan rabaa inaan raaciyo horta culamada daarisalaam jooga horta anaga culamadii la yaqaana ma nihin reer koonfur waxaan nahnaa meel haddii laga waayo shimbir digaag ayaa shimbir ka noqota marka waxayna buubtaa farxayna waxaa shimbir haysanaa leenahay horta anaga waxaana digaagtii buubaysa wax yarsha horta culamadii saxda ma ahan taas waa midda kood midda labaad haddaan waddankan joogno deena dacwadii waa wadnay aniga maanta nafteyda laba wiil ka hor dad ayaa marti qaaday xaafadeyda oo culus safiirka yeman iyo dad kale xaafadeyda ila afuraya laakiin markuu sheekh maxamed isoo wacay waxaan dhe waan xaadiraya laakiin afur ka hor waan cararaya maxaan u yeelay inaan waajibkeyga saaran walaaleyga soomaalida inaan mar kasto aan ajiibo
تقصير واجرة دي فطورنا واجرة لكن إذا نفت نسوق الشيخ محمد شيغي قيب أياكتهن قيب أياكتهن هدي دك سوق قابيان دي محاضرة الدروس ربان أنا جوان إيمانينا محاضرة الدروس ربان سعتها مساجد كالهدى دروس بكسعتها محاضرين مساجد قبلتين الشيخ علي دروس وكوضا متوني يعني الله الشيخ محمود سبتو مبقالا كوضا تفسير القرآن وكوضا وأنا منك ولا لها يعني جرير وينه دعوة كسعتها متوني مدارس كفرا دعوة محاضرين كواسعتها لكن بهاش أن سوء أرونا أن فرفيقنا غير كرياكو الشيخ ومحو هاي سانده تمانيك ولا بهاش كسعتها غير كرياكو دينك يسوء ماذا أنا قد ياران هاي وقت قال هذان درسي محاضرة إسحابية ميلا محاضرة كجيدنا واهينا زي قرقرت إلى خراسيو إلى بركة حوليسا وقت قصة ماشي وحنوتها تيار أما أنت أما سيتي مول أما سيتي جاردن بلا شيء نكو قادنا دينك الصحابية إماذا أنا قد ياران هاي من حاول بر إبي واسكو باهنين سمان بيكلي صار من نقطه بر كلنا سير صار من نقطه لو نسكدر أنا قد ياران هاي لكن دعوة واودنا أنا قدرت ودنا كان لجوجنا دروس وما خرنا سوا أركتان دعوة ودنا دروس واودنا أي قدرت كوا عنا يقولين كان الشيخ وحنسي قفك آمنا بيه وجنيسا تديكم مؤمنين أنا بيه ولا إيماننا إن شاء الله إن شاء الله ده نعم جزاكم الله خير جزاك الله خير الجزاء أنت واحد قدر لها إن أنت على نصوحين كالمدى إلهي إذن كيس وحان رجين إن سيدا ولا له صوت صدين إن علماء أي قاعدة دور كوديكو أدنى ومدى مسلمين تا أي كدشين dadkuna ay qaataan iyaguna doorkoodii ku aadanaa oo ah inay soo qabanqaabiyaan oo ay soo xaadiraan markii loo yeero muxaadaro lagu yeero culimaduna ay qaato doorkoodii oo dadku hadday u yeeraan inay ajiibaan oo ay wixii muxaadaraada wixii cilmi ay dheer yihiin ay gaarsiiyaan intaa waxaan ku dari lahaa waxaan insha allahu tacaala qabanqaabin doonaa biidnillahi tacaala bil walba inaan ugu yaraan hal mar aan qabanno muxaadaro caama oo dadka lasugu yeero marka culimadii hadda sheekhu isagoo afka culimada ku hadlaya wuxuu sheegay in xilligii loo yeero ay diyaar yihiin idinkana waxaan idinka codsanaa insha allahu tacaala inaad majaalista usoo camirtaan oo aad soo diyaar garowdaan oo aad kasoo xaadirtaan xilliyada muxaadarada la iclaamin doono oo la qaban doono waxaana soo qabanqaabin doonaa haddii ilaahayno bishiiba mar ugu yaraan haddii loo arko inay intaa laga badin karana insha allahu tacaala waa isku dayeynaa waxaan qaba sheekh haddaba weydii bil soo aragtaan dhaha haddaba bahasha aan ku xorna ayaga bishii soo aragtaan okay miya gacmaha taaga intii bishi rabto قصد بشي انت ما اسبوع عادتها بشي هالمر عندكم علي مرات idinku horaaliya هاي دجيه ان شاء الله dadkii rabaan saddexdii bil hal mar جزاك الله خير اوكي انا diyaar ahay bishi koowaad baan lagu qoro hadda la isku waafaqo waqtiga sheekh Soomaali waxay dhahan geesalo aad kuleelka lagu gooyaa هدب شيخ وقتها نقرا عن قلاده نعم وقتها شيخ محمد احد اوكي لكن وقتها بشا شوال 100 اوكي احد قدام بيسا بشا بالكاستو ما غشان كيلا جمابيلي مش مويزي نقدر حكوا سجوا فاهم الباشا ما شاء الله جزاك الله خيرا سيدا قلب فران تلا ولاله ay soo dhaweeyeen in bil walba la qabto muxaadaro culimadana ay soo dhaweysay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu noo aqbalo oo noo qaado su'aasha u dambaysa oo aan ku soo xiri doono haddii aan nadar ku galay haddii aan baasaboorka Tansaaniyaanka helo inaan kow xaji ku aado haddana xajkii la xiray meel kale ma ka aadi karaa xajkaas haddaan ku aado meel kale si xukunkaas muxuu yahay الحمد لله horta meel xaj loo aado ama ka ahayn aniga ma aqaani fahmi sanahay waxaan soo xasuustay baagi Soomaaliya aan joognay qabrigii Sheekh Oweys raxmatullaahi calayh ayaan ku dawaafi jirnay 7 mar isku daqaanid markaas waxaan dhihi jirnay xajkii ninkii hal mar taga ziyaara Sheekh Oweys biyooley hal mar taga waxaa la mid tahay kaanama xaja 7 maraat waa jahligii nagu abuurna xaqiiqatan
aniga sheekh Uways raxmatullahi alayhi aan la warnaa dadka ma gaalaysiinano wuxuu yahay ma naqanin muumin waa inuu fiican waa laakiin waxaan ka wadaa qalad ayuu ahaa arrinkaas waxaan u fahmay su'aasha meel kale ma ka aadi kara biyoole ma ka aadi kara oo kale u fahmo waqtani tii ay ugu soo dhacday sheekh maxamed ayaga sax wuxuu dhamaya wadan kale ma ku aadi kara ma haduu shardi lahaa koow waxaan ku aadayaa xajkina uu ka xarmay meeshka hadii ay tahay daruuro tahay tibax culimadu waxay leeyihiin ad-daruuraat tubiixu al-maxduuraat daruurada wixii laga reebay ayay ku fududaynaysaa wad-daruuraat tuqaddaru biqadariha daruuradana waxaa lagu qiyaasayaa waxaa lagu qadarinayaa qadarkeeda iyo sidii kuu qabsato laakiin haddii xajki kaa xiran yahay meel kale ku aadaysid dee muhiim ay tahay iska aad dib ma leh xajki markuu furmo ayaa markaasi ku qabanaysaa ma jarta ku aad baasboorka laakiin adi waxaad markaa nidirka gelaysa waxaad kaa dhadhacsanaa xajka inuu open ahaa soo maahan furnaa de xajki waa xirmay adi maa xirti nidirkii weli meeshuu kugu sugayaa maalintii xajka furmo nidirkii waa lagaa rabaa nabig alay slam wuxuu dhahay man nadara an yuطiica allah falyuطichu ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه الله تعالى اجعل هذا الجمع جمعا مباركا اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا وممن قام رمضان إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن اعتقتهم في رمضان في كل ليلة من لياليه اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين نسألك أن تحفظ هذه البلاد والمسلمين وسائر بلاد المسلمين اللهم أطب الأمن والأمانة في الصومال اللهم أبعد عنهم نزغات الشيطان اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا يا رب العالمين اللهم نسألك أن تحفظنا بحفظك يا حفيظ اللهم أعد علينا رمضان سنين عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم توفنا وأنت راض عنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا وخذ ثأرنا على من ظلمنا انصرنا على من عادانا لا تجعل مصيبتنا في ديننا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين عليك بأعدائك أعداء الدين اللهم اقض الدين عن المدينين اللهم نعوذ بك من الهم والغم البخل والجبن العجز والكسل غلبة الدين وقهر الرجال يا رب العالمين وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير الجزاء. أنت وحنا نوصل لبعض محاضرة قيم كهذا الشيخ نوجه سؤالي كتبيبة وحن مرلبات هم هنقيا إلهي النوصل الجلي إن نوقف صنط محاضرة يكون كان أسبوع لمانه وحن سيدو كلام مرلبات هم هنقيا شيخنا الشيخ عبد القادر أحمد الأهدلي waxaan kaloo u mahadnaqayaa walaalaha shirkadda haas noo suuro geliyey kulankan aan sugu nimaadno afurkana sameeyey ilaahay maalkoodii xoolahoodii caqligoodii xooggooda u barakeeyo waxaan kaloo mar labaad u mahadnaqayaa walaalaha soo ajiibay muxaadarada jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Dar es Salaam barakallahu fiikum dhammaantiin jazaakumullahu khayran wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.